gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa maanta si rasmi ah xilkii ugu kala wareejiyay taliyihii qaybta bilayska ee gobolka Togdheer ee hore iyo taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Togdheer ee loo soo magacaabay. ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay taliyihii hore ee qaybta booliiska ee gobolka Togdheer isagoo faahfaahin ka bixiyay xilkan iyo muddadii uu hayay. bool qayb ma taqaanay Togdheer ku wareejinaya gaashaan la sare Axmed aw Cali Shabeel waxaan ma taqaanay dadweynaha reer Togdheer saraakiisha booliiska iyo barasaabka iyo laamaha dawladda aan ka codsanayaa in ay sarkaalka cusub si fiican ay ula shaqeeyaan sidii anigu baan u wada shaqeyn jiray in ay ula shaqeeyaan iyo wuxuu xagga nabadgelyadiisa 100% way fiican tahay dilalka ayaa ku badnaan jiray gobolka Togdheer maanta dilalku waxaan filayaa inuu gobolada ugu yar yahay wax dil ka dhaca inuu ka mid yahay dalalka ugu dilka. geesta kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay taliyaha cusub ee loo soo magacaabay qaybta booliiska ee gobolka Togdheer. waxa aad ii dhiirigelisay runtii kalsooni ay gu abuuraysaa warbixinta uu idinka bixiyay hadda ciidankii booliiska ee gobolka Togdheer tihiin ee taliyihii hore Cabdi Cali Xay warbixin waafiya oo runtii kalsooni kordhinaysa ayuu idinka bixiyay taas uu yaala idinka waay bariso warbixinta la idinka bixiyay wanaagsan ayuu baynu eegi doonaa sida ay u hirgasho dhexdiina waxa la ka doonayaa ixtiraam amar kala qaadasho iyo hadii beekada leeyahay wada shaqayn rasmi ah. ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer waxaanu yiri maanta waxaynu xilka u kala wareejinaynaa taliyaheenii hore ee ciidanka booliiska iyo taliyaheen cusub taliyaheenii hore waa u duceynaynaa oo waana sii sagooteena waxaan leenahay maaragtay shaqadii aad gobolka u qabatay muddadii aad joogtay ee wanaagsanayd ee hufleyd waan kugu hambalyeynaa halka imika lagu geeyna waxaan ilaahay kaaga rajaynayaa inaad wax wanaagsan kala kulanto runtii waxa taliyo waay araga oo si wanaagsan nabadgelyada uga shaqeeyay taliyaheen cusub waan soo dhaweynaynaa taliya waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolka Togdheer gobol nabdoon oo degan oo wax weeyaan booliisku ay si wanaagsan nabadgelyadiisa noogala shaqeeyeen runtii ayaanu kugu soo dhaweynaynaa xilka cusub ee aad hadda ka qabatay gobolka Togdheerna waa kugu duceynaynaa in Ilaahay kugu waasay qaybta ciidanka asluubta gobolka Togdheer waxaan ay dhaxayso wada shaqeyn buuxda inkastoo barnaamij dambe xooyara jireen hase yeeshee aan gadaal ka hagaajinay oo wada shaqeyn wanaagsan baa naga dhaxaysa siiba gaashaan la Cabdi Cali Xiid wuxuu ahaa sarkaal wanaagsan sarkaal ahaan iyo shaqo ahaan. hadaladaasi kadibna waxa si rasmi ah xilkii lagu kala wareejiyay labadaasi taliye waa taliyihii hore qaybta booliiska ee gobolka Togdheer iyo taliyaha cusub ee qaybta bilayska ee gobolka Togdheer. maxamed Saciid Gaaxnuug telefishinka caalamiga badda cas 24 TV Burco.